bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada jaalka maalmaha waxaan idinla wadaagaynaa qiso aada u xiiso badan. qisadan ayaa waxay ku saabsan tahay faa'iidada ay sadaqadu leedahay. nin u dhashay dalka Masar ayaa waxaa ku dhacay cudur wadna xanuun ah, wuxuuna muddo badan ku naqnaqanayay dhaqaatiirta dalka Masar. hase yeeshee markii dambe wuxuu ka maarmi waayey inuu dalka dibaddiisa u aado caafimaad. ugu dambeyntii wuxuu go'aansaday inuu aado dalka Ingiriiska. markii uu tegay dalka Ingiriiska ayaa waxaa lagu sameeyay baaris, waxaana lagu yiri waa in lagu sameeyo qalin degdeg ah, waxaana suuragal ah in lagu guuldareysto qalinkaaga sidaan aad ku weyso noloshaada. wuxuu yiri waxaad isiisaan dhowr maalmood si aan wadankayga ugu laabto howlaha iga qabyada ahna soo dhameystirto. kadib wuxuu ku soo laabtay dalka Masar. maalin ayuu wuxuu aaday nin ay saaxiibo ahaayeen si uu soo macsalaameeyo. markii uu ka soo laabtay saaxiibkiis isaga oo ay ka muuqato murugo daran ayuu wadada wuxuu ku arkay haweeney waayeel ah oo ag taagan meesha hilibka lagu iibiyo, isla markaana qaadanayso waxyaabaha uu iska tuuro. kadib waa uu soo dhawaaday wuxuuna weydiiyey xaaladeeda. waxay ku tiri waxaan dhalay 6 gabdhood oo agoon ah, mana haysto wax lacaga, waxaan u gurbiyaa waxyaabaha uu ninkan iska tuurayo. waxay tiri dhowr bilood gabdhahayga hilib ma aysan cunin. ninkii waa uu iska ooyey. wuxuu weydiiyey islaantii inta ku filan isbuuci iyada iyo gabdhaheeda. kadib wuxuu u tegay ninkii hilibka iibinaya wuxuuna u dhiibay 1 sano lacagteeda, wuxuuna ku yiri maalin waliba waa inaad siisaa naagtan hilib. islaantii markii aragtay in laga bixiyay 1 sano hilibkeeda ayay inta ay dhulka fadhiisatay ay iska ooysay, waxayna bilowday inay alla baryayso. ninkii aad ay ugu duceysay. kadib ninkii isaga oo faraxsan ayuu ka soo tagay, wuxuuna soo aaday gurigiisa. markii uu soo galay guriga ayaa waxa ka hortimid gabar ka mid ah gabdhihiisa. waxayna ku tiri aabo maanta wajigaaga farxad ayaa ka muuqato. markaasuu wuxuu uga sheekayay qisadii uu la kulmay. gabadhii aad ayuu u ooysay. kadibna waxay bilowday inay alla baryayso. waxay tiri allow sida uu naagtaas uga farxiyey annagana nooga farxiy caafimaadka aabaheen. markii uu howshiisii dhammaystay ayuu wuxuu ku laabtay dalka Ingiriiska, wuxuuna la kulmay dhaqaatiirtii. kadib waxaa lagu sameeyay baaris kale, balse waxaa dhacday arrin aad ay dhaqaatiirtu ula yaabeen. waxaa ninkii laga waayay cudurkii lagu sheegay. waxay ku yiraahdeen waa inaan mar kale baaris kugu celinaa si aan u hubino inuu cudurka ku hay in kaleeto. wuxuu ku yiraahday lagu celiyo. kadib markii lagu celiyay ayaa haddana cudurkii laga waayay. kadib waxay dhaqaatiirtii ku yiraahdeen maxaad samaysay? wuxuu yiri alla ayaan isku dhiibay, isagaan i caafiyay. qisadan waxaynu ka faa'iideynaa qiimaha ay sadaqadu leedahay. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiis ku yiri dadkiina xanuunsan waxaad ku daaweysaan sadaqada. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka cusub tahay jaalka maalmaha fadlan sabskaraab dheh gambaleelkan riix si ay kuu soo gaaraan waxyaabo cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.